السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Dhambaal TV oo idin soo gudbiya alaaba wararka iyo suugaanta iyo wixii la halmaalay hadba bulshadu u baahan tahay. Haddaba maanta oo kale waxaan idin soo gudbin jiray qodobkii murtida maanta ayaa waxaanu kaga hadli doonaa maanso taasoo tilmaamaysa arrin jacayl Soomaalidu kulay toole si aaba kala duwan bay isu guursatay waxa maalin maalmaha kamid ah dhacday nin kamid ah beeraha la haybsooco oo aad u murugaysan ayaa igu soo baxay kaasoo ii sheegay in uu gabadh uu jeclaaday kadibna reerkoodii u diiday oo lagu yiri mageydid maansada ayaa ka soo baxday markaa isla su'aal arrimahan isu weydaarsanay horta waxa ogaataan kulay qofkii dhalinyarada baa dareemi kare jacaylku waa wax aan dhakhtarka daweyn karin tol waxba kala qaban karin kaliya waxa uu wax kala qaban karo qofkii aad calmatay oo hesho marka waxyaabaha imika hadii nasiib darrada ah Soomaalida caado xun ay iguma caydeen buu leeyahay moogte cilmi boodheeriyo kale waxa weeyaan isagoo waxba la jeclaamo ninkaas wax jeclaado markaas ay dadkiiba la yaabeen berigaana waxa jiri wax la dhabar garaac iyo in gabadha la isu doono iyo waxa ka horta qisayarna waxaan doonayaa ka sheekayo nin loo jeeyo Sheekh Yuusuf Qaasim ayaa waxa hadda ka hor ii sheegay inuu yiri aabahay baa gabadhii doonay kadibna markuu gabadhii doonay baa reerkii waxa la siiyay 150 halaad markaas odaygii markii 3 sanadood ay ka soo gubtay guur aaba ma aragtay gabadhan inoo doonay markaas ku plan soo eego inaan kala u raaciyay kadibna meelaha goobaha ay joogaan dumarku beriga hore dumarku ceeb waxa weeyaan wala kala dhici jiro xoog baa lagu kala qaadi jiray waxa joogi jiray dhalinyaro barbaara oo ilaalisa kadibna markay kaadi tagayaan oo kala meel qabanay xaabad doonayaan koox fardooliya si horor dijitay sida awgeed waxaan la kulmay habliyo soo baxay iyo inamadii ka soo horeyn jiray soo socda markaas war maxaad ahayd markaas wuxuu yiri waxa inankii in ka soo doontay gabadha ul sidii loogu waday ba kood kasta lagu jabiyay markaas oday ku soo noqday isagoo tabcaan oo meel waliba ay bararto maasa daabo waa la soo dilay hadda waa ninkii reer kabal xididka ahaa marka ujeedada waxaan u socdaa systemyada hore way kala duwanaayeen dadku ay wax u kala doonan jireen baadaba maansada ku soo dhawaado maasadan waxay leedahay loo hadii jacayl leeyihiyo la hashalay Kenya la fuhu jabshaaca shaqan lagu la maaraynin loofloofka oo cilmi badan laga qisado waa cilmi waki hadda ka hadlayay cilmi boodhariye loofloofka cilmi badan laga qisooday xudku duway leeleeyo ladanihi qayse leedhiisu duufaan ka daran lulaysa geeda ay leeshaanka ruuxu la helo looga yeer halis ladna lagama gaariyo doctor loola tagaya marka aad iyo aad baan idin salaamaya daawadayaal inta la isugu iman doono barnaamijka lamida waxaan idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaan allah.